xildhibaan cabdikariin miicaad xuseen oo ka mid noqday xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo xildhibaan Yaasiin Xasan Dhaayin oo ka mid noqday xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ceelgaawo ayaa munaasabad ay ugu mahad celinayaan taageerayaasha iyo bulshadii soo dooratay ku qabtay hoolka Istanbul ee magaalada Ceelgaawo. Waxaa munaasabada ka soo qayb galay madax dhaqameed ugu horeeyay Qor Maxamed Nuux iyo Suldaan Siciid iyo qaar ka mid ah taageerayaasha labada xildhibaan iyo xubno isugu jira xildhibaanadii hore iyo kuwa ka tirsan xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada. Ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay xildhibaan Yaasiin Xasan Dhaayin iyo xildhibaan cabdikariin miicaad xuseen oo u mahad celiyay taageerayaashii codka siiyay. waxaanu dareemaynaa in mas'uuliyadna la saaray mas'uuliyaduna waa wax jilicsan waa wax culus marka koobaad waxaan Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay noo fududeeyo mas'uuliyadda iyo xilka aadna hugiseen. marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadweynihii sharafta lahaa ee habeen iyo maalin oo istaagay maalna geliyay muruqna geliyay waqtina geliyay aan naga hadhin ee doonayay inaan maanta halkan nimaadno iyagana waa u mahad celinaynaa. golaha deegaanku wuxuu ka shaqeeyaa waa horumarinta iyo kor u qaadida arrimaha bulshada inaynu helno Ceelgaawo qurux badan Ceelgaawo bilicsan Ceelgaawo ka horumarsan. waxa mahadda iska leh Ilaahay baa mahadda iska leh ina gaarsiiyay guushii aynu u soconnay ee ahayd inaynu soo baxno oo aan noqono dadka haga xagga sharciga jamhuuriyaddan Soomaaliland ee u matali doona gobolka Sanaag. waxaan ay xildhibaan qaran waxa weeyaan dadkii doorashada inaga soo horjeeday iyo kii tartamayay intaba maanta anaa u xildhibaankiisuna waa aniga. mas'uuliyadda ay fuushay darteed qof walba oo xanaf siyaasadeed aanu kala tirsanaynay waxa naga dhaxeeya saamax waana saamaxay waxna uma hayo calooshana wax uma hayo idinkuna waxa ugu haynna. waa iyaguna halkaasi hadalkiisa kala dambeeyay qaar ka mid ah taageerayaashii munaasabadaasi ka soo qayb galay xildhibaano madax dhaqameed iyo xubno kale oo la sii dardaarmay xildhibaanada cusub ee la doortay. labada xildhibaan saxaafado badan waxaanu ka sheegnay inay labaanu aad u leeyihiin horaan loo ka dhageystay waa kuwii oo soo baxay annana halkan waxaanu uga jeedinaynaa oo caawa ugu kulannay hambaliyo maanta nin la sugayo wadnayaad sugay ninkii waa xul faraya maaha dadkii wax la fari jiray maaha dadkii wax loo sheegi jiray aqoontoodaannu aragnay inay nagu hoggaamin karayaan. hadduu fiiqo fiyaaradda hore gurigiisa dhammaan waddooyinku nadiif bay noqon lahaayeen dadku hadday qaabkan iskugu xidhnaan lahaayeen dad tayo leh oo noocan oo kale la keeni lahaa insha allahu tacaala. waxaan u hambaliyaynayaa labadii xildhibaan ee mid ahaa golaha wakiilada cabdikariin miicaad iyo xildhibaankii golaha deegaanka Yaasiin Xasan Cabdi. waxaan leeyahay hambalyo iyo cabdikariin iyo Yaasiin inay dadkii soo doortay u mahadnaqaan kuwaan u codayna ee beesha ka mid ahaana ay iska cafiyaan waayo iyagaa u xildhibaana waana u ducaynayaa. halka kan waxa weeye xildhibaanadu waa kuwaynu soo dooranay waxaynu leenahay hambalyo waxaynu xafladda tan waxay caawa loo dhigay oo la isugu yimi waxay matalaysaa xildhibaanadii aynu inta badan soo wadnay ee aad garanaysaan ee aynu soo xullay. waxaan leenahay ilaahay xilkiinna ha idinku asturo kuwii ka soo baxa ee xaqa wax ku xukuma ahaada sidii xasan cabdi caraale sheegayay. waa xil culus ilaahay ha idinku asturo baannu leenahay xilka ummadda u qaadeen. waxaan leeyahay in laba ujeeddaa jiray oo xildhibaanadu waxay lahaayeen warna doorta aannu abaal gudne innagu ujeeddadeennu waa gaadhna haddaynu taageerayaasha ahayn laakiin iyagaynu sugaynaa. waayo maanta tacabkiinnii wuxuu ka muuqdaa xildhibaanada aad keenteen ee aad ku tacabteen ee codkiinna aad kula soo baxdeen marka guul weyn baad taagantihiin oo aad weliba taariikh u lahaydeen. idinka iyo kuwa maqanba markhaanti waxaan idinka nahay dadweynihiinna jooga iyo dadweynaha maqanba in codkiinni ay ku soo baxeen ee aanay ku soo bixin wax kaloo farsamo ah iyo wax kale oo isdabamarina midna. cabdikariin miicaad iyo Yaasiin Xasan Dhaayin hadda waynu la dardaarmaynaa way tegayaan waxbay noo doonayaan gobolka ayay u shaqaynayaan
inagu waajibkeenna waynu ka soo baxnay xildhibaanada ina metelaya ee gobolka metelaya waxaan idin leeyahay meel kasta ka soo baxa cid kastaba ahaada abtirsiintiinu waa reer Sanaag waa magaalo madaxda Ceergaabo waxaad u taraysaan halkaas la idinka baahan yahay gabayahow taageer guji hadalka oo fidi gacalkayga gaarsii gabi waxaad tiraahdaa ninka guusha dhaliyo ninkii gaari waaya waad wada gudboontiin nina goosan muu noqon nina geela muu dhicin nina gamas ma dhiigeen garashaa sidaa tiri isu geeya taladoo gacmuhuna isweydaar ha ku gaadho guushii ragga soo baxay de gobolkunbaa u soo baxdeen dadkiina iyo dalkiina u soo baxdeen waxaanu leenahay kuwii dalkooda iyo dadkooda anfaca ilaahay idinka dhigo dardaarankayga koobaad waxa weeye xildhibaanada iyagoo niman aqoon leh ah waxaanu doonaynaa dhalinyaro ahaan ka gobol Sanaag ahaan in dhalinyarada gobolka Sanaag waxqabadka u horeeya xildhibaano qaaliya baa soo baxay laakiin waxaanu leenahay kul caasimadii baa tegaysaan ilaahay idin nabad geliyo gobolka Sanaag iyo Soomaaliland bay idinka xildhibaanaa nin walba deetaalkiisa waa Soomaaliland cadaaladda u qaada Sanaagna u qaada inaynu caawa halka ku dabaaldegno hayaan dheer iyo tacab badan iyo hawl badan iyo soo jeed iyo orod aynu ku soo jirnay inaynu caawa halkan ku hambalyeeyno leedinkuna hambalyeeyo hayaanka dheer ku soo jirteen ee habeenii maalin ay u soo jeedeen si ay u hanan lahaydeen guusha una soo saar lahaydeen halyeeyada hortiina fadhiya ee tacabkiina geliseen farxad way baanay tahay guushaana waxa iska leh ilaahay ka sokow waxa iska leh shacabkiina halka fadhiya waana idinka mahad celinaynaa cidajin ama wax ka bedel sharci hore u jiray sharci hore u jiray inaan wax ka bedelno ama inaan sharci cusub hirgelino shaqada labaadna waxa weeye inaanu dawladda xubnaheeda ama madaxweynuhu ugu horeeyo wasiirada ku xigaan inaanu ku ilaalino xayndaabka sharciyeed aynu dhiganay ee inoo yaala anagu qodob baan idin ballan qaadanaa oo ah inaana waxba sakran doonin biidnillaahi alkariim aan leeyahay xildhibaanadeeda xagga laga soo dartay maanta waxaanu ku ballan qaadnay inaanu ka howlgalno xeerarka gobolkan saameeyey runtii ka soo joogsaday horumarinta bulshada iyo horumarinta deegaanka oo dhan